السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشبال ميديا ليبان يلدنان داوديال وحانو هالكن يكسو قدبينينا هدو إلهي إنما أرنتك وعبرشادة مركب بدن للسي دولة فدرالكا iyo ma oranay dawladda federaalka waxaan leeyahay wasiir goodax barre iyo maamul goboleedka Puntland ee garka iskula jiraan oo maalmaha social media qabsatay ayaan wax rabnaa inaan wax yar ka taataabano ujeedka meesha ku jira iyo arinta ka dambaysa fadlan intaanan horta mawduuca u guda gelin ha kala bakheelina channelka inaad subscribe saartaan comment share intaba inaad isugu dartaan jumla ahaan u siisaan idinkoo mahadsan marka xiga aanoo ka hor dhicin bal waxaan ku bilaabayaa wasiir goodax barre sida uu hadalka u dhigay iyo sida ay wax yihiin isaga ayaa noo faahfaahinaya maxaa yeelay waxa lagu heshiiyey in wadanku hal imtixaan galo hal manhajna uu yeesho xukuumadda federaalkuna ee arintaa hogaamiso heshiiska asiga ah waa meel maray dalladaha iyo bahda waxbarashada guud ahaan noocay doonaan ha noqdaan dadka dareynay shaqo fiican ay qabteen waxa la bilaabay imtixaankii waxa la bilaabay in manhajkii la mideeyo oo la isku toosiyo oo buwaagtiis la qoro oo wixiisa la sameeyo nasiib darro maamul goboleedka Puntland arintaas sababtay doonaan ha sheegaan waa ka gacan sayreen waa diideen daawadayaal sida aad wada dhageysateen ama aad wada daawanayseen wasiirku waxa uu ka dhawaajiyay halka ay sartu ka quruntay waxa uu sheegay in Puntland heshiis laga galay oo dalladaha waxbarashada iyo dhammaan la isu yimi oo dawladda federaalka ay hormuud ka ahayd inay Puntland heshiiskaas ku gacan sayrtay oo iyada laga taagwaayay marka maxaa meesha khaldan Puntland maxaa ay daboolaysaa oo ay arintan uga warwareegaysaa in xaqiiqada la taabto isla hadalkaas ayaa waxa idin qeexaya wasiir goodax barre oo ku taagtaagsanaya sababtu waxa ay tahay waxaan rabaa marka hore inaan qeexo in aysan salka ku haynin dastuurka marka dadku fasirayeen waxay ku fasirayeen dastuurka ogol iyo dastuurka kan arintan arin dastuurka lagu fasiro ma aha waan idin sheegi doonaa sababta arintan arin heshiisiyo iyo waxa salka ku hayo ma aha arintan waxa ay tahay waxa weeye arin salka ku hayso arday imtixaan galay ee muujiyay aqoontiisa shahaadada uu qaadanayo in arday aan muujin balse laga yaabo inuu ka aqoon yar yahay iyo mid aan ka aqoon yareenba in ay wada qaataan shahaado isku mid ah arintu salka ku hayso arintaas dadaale mataqaanaa dastuurku wuxuu ogol yahay in ardayda Soomaaliyeed waxbarasho helaan waxaas waa marin habaabin dastuurku waa leeyahay laakiin wax ka khuseeyo mawduucaas sida ay dastuurku u fasirayaan ma aha arintan waa arin basiida oo sahlan waxa weeye ardaygu imtixaan ha galo shahaado u qalmo wixii uu shaqaystayna ha la siiyo qofkii aan imtixaankaas gelin na waa inuusan ayadoo aan la dhehaynin waa fiican yahay waa xun yahay waa inuusan shahaado helin waa arin aad saas basiid u ah ma jiro dastuur dhahayo ardayga Soomaaliyeed ha la kala fadli yeelo midna imtixaan ha la geliyo shahaado ha la siiyo midna yuusan imtixaan gelin ha la siiyo shahaado dastuur dhahayo Soomaaliya kuma yaal sidaad wada daawanayseen yaan waxba hadalka idinku daalin waad aragteen wasiirku waxa uu kaga dhawaajiyay sababta jirta waxa ay tahay iyo halka uu salka ku hayo murankan muddada dheer soo jiitamay iyo ujeedka laga leeyahay waxa uu yahay in Puntland waxbarashadeeda dad afduub ku haystaan in ay dad u xirmeysan tahay xirmo beer coos ka baxay baad moodaa
waxbarashadii Puntland beer coos ka baxay baa sideedii loo xirmaysta waa nasiib darro ujeedada ugu weyn dadka salka ku haya isla markale wasiirka ayaa noo faahfaahinaya cidda ka dambaysa oo hortaagan oo danaha gaarka ku haysata waxbarashada Puntland daday u afduuban tahay aan warkaa ku soo celiyo waalidiinta iyo ardayda Puntland way og yihiin in waxbarashada dad u afduuban tahay wadaadkii 80 jirka ahaa ee rabo in muxuu ahaa 18 jirka reer Puntland oo mustaqbali ay seejiyo ay u afduuban tahay asiga iyo kuwa say doonaan ba xiriir ha u lahaadaan xiriirka ay leeyihiin waxaan arkay wiilkiisa oo qaylinaayo waxaan arkay mataqaanaa kuwa ka horeeyo qaylinaayo juxa iyo muxuu ahaa cali xaaji iyo dad noocaasa hey waad wada dhageysateen waana ka bogateen saan filaayo wasiirku waxba idinma hambayn hadalna idinma qarin odagaa 80 jirka oo da'da ah oo xilliga cibaadada joogay iyo labadaa nin ee meesha ku mabay cali xaaji warsamuhu isagu isgaarsiin baa lagu ogaayay markii uu siyaasadda galay ayuu haddana waxbarashada iyo balaayo iyo ummadda ku qabsaday waaba fidmo socota shaarkiisa waxa ku hoos jirana waa la yaqaan inuusan nin khayr ahayn qof walba reer Puntland u dhashay waa yaqaan cali xaaji warsamuhu wuxuu yahay anuu juxa waxba ka sheegi maayo مسكين بانو أقانوضي مسكين أو ميلا عسكا قيلناي فرولة سي منافقة دو جيرانا وفرولة يفيدنا مركا الشعب كرير بنتولان اسكا قبطاني دين ليهي او دوغينا أقون صدا مستقبل بيل هكوري دين عرورتين داير تاي سوكوريا انتا اي لمايان دوكسي سارة دربيجي فاكادينا وضي 8 سنة جريونا ايدين تالين او عبرشاد ايدين كو قبسان Puntland ummad badan baa degan reer iska ma lahan shakhsi gaar ma lahan qof ma hor istaagi kara danahooda orda dashada oo dulinimada iska qaada oo odagaasi deelta ka jira meel fariista aaw baarlamaanka Puntland aaw golay wasiirada Puntland kulli isaga ajaabka ku shub macal kan dani la leeyahay oo iska dawlad wax uu ku tirsan yahay aan la garanin odagaasa wuxuu ku haystaa afduub oo iska muu riixi karo oradiga tagma oran karno aan ka shaqeystay horay sida loo sheegay Cabdulle Cali Gaas wasiirkaaba noo sheegay hal maalin waa ka shaqeyn waayay miduu qoorta kaga hay marka faroole waagi uu gobernatoraha ka ahaa gobolka Nugaalna Allahu naxariiste Islaan Ciisa ka farmaroojiyay oo barqacad ka qaaday intuu ku dhagay oo laga fujin waayo yiri ana iska leh ma fahanti maantayna waxbarashadii Puntland buu wuxuu ku haystaa horta fidmaba waa wixii senatarka ka dhigay oo yiri aqalka sare tag in la dhahay ahayd orod niyo masaajidka galow tusbaxa 9 sano jirtay 8 xataa waa ka weyn farol 100 sano waa gaar waardii fidansu shaqada ka bilaw waardii fidansu goormeed waa 60 iyo wixii ka horeeyay dadka ciidanka u ahaa Talyaani inuu maanta marka ummadda jahwareeriyo oo uu qar ka tuuro ma ahan waxaasi dulinimo haysaa dadka reer Puntland oo dhagala oo maya indhala waa dam dhagaha un bay wax ka maqlaan waxaan idin leeyahay ilaahay indhaha idin furo waxa idin tus oo aad dulmiga iyo dulinimadaada aad dugsanaysaan ilaahay idin ka qaado allan iska qaban maysaan idinku sidii dad yatiin ah baa shakhsi baa leedin leeyahay laba shakhsi baa waxbarashadiinni dhan hortaagan dugsiyadii sare oo dhan ardaydii jaamacadaha u gudbi lahaa waqtigii ka lumay iyo beerdarada iyo khasaarada ku dhacday iyo dhibka ilmaha aad juhdiga geliseen oo aad intaasoo sano wax soo barayseen inuu hor istaagan nin xilliga jaamacadda u gudbi lahaayeen waa nasiib darro ororda waxa iska qaada oo dad iska dhiga oo isnooleeyo damiirkiina soo cesh dulinimo lama dugsadee intaasaan anu idinkula dardaarmaya wassalaamu calaykum